saddex shay oo ay qasab tahay inaad samayso subaxdii haddii aad rabto inaad kacdo adigoo faraxsan. subax kasta oo kuu dhalata waa fursad cusub, laakiin dadka badankiisu waxay kacaan iyagoo daalan, iyagoo dareemaya in culays uu saaran yahay. ma ogtahay in ay jiraan kicitaankaaga uu mas-uul ka yahay 5 daqiiqo ugu horeysa ee indhaha aad kala furto ayaa go'aamiya kicitaankaaga. macnaha 5 daqiiqo ugu horeysa ee indhaha aad kala furto ayaa go'aaminaysa saacadahaaga maalinta inteeda kale. waxaan kuu sheegi doonaa 3 shay oo muhiim ah oo ay tahay inaad samayso marka aad kacdo. shayga koowaad, maareynta iftiinka iyo biyaha. jirkeena wuxuu u baahan yahay calaamad muujinaysa in ay tahay xilli shaqo inaan u sheegno. isla marka aad kacdo marka waxaad samaysaa daaqada fur ama dibadda u bax si iftiinka qoraxda ama iftiinka maalintii ama iftiinka subaxdii sida aad u dhahdaba uu u taabto indhahaaga. tanina waxay xoojinaysaa soo saarista hormoonka hurdada melatonin in la joojiyo. macnaha marka waxaad samaynaysaa waa kacday. horta marka aad kacdo waxaa ka bilaabaysaa dhibaatada ugu horeysa dadka haysa waxaa waaye sariirtaba ka kici karinba. marka ugu horeysa marka waxaad samaynaysaa markaa indhaha kala furto alxamdulillahi alladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nushuur, ducada istiqaadu min annowm in akhriso waayo. marka xigta waxaad samaynaysaa 5 4 2 3 2 1 ayaad leedahay. hal markaad tagto waa inaad joodariga ka istaagto. haddii aadan ka istaagin hurdadaa ku noqonay, taasna waa cilada kale. marka saddexaad waxaad samaynaysaa waa istaagaysaa, daaqadaa furanaysaa ama banaanka aadaysaa. marka afraad waxaad samaynaysaa biyo ayaa la rabaa. habeenkii aad sii diyaarsanay galaas biyo ah ayaa sii diyaarsanaysaa. galaaskaas biyo ah meel ayaa dhiganaysaa. cab biyo qabow hadday yihiin kasii fiican. jirkaaga habeenkii oo dhan wuu oomanaa, wuxuu u baahan yahay biyo si uu maskaxda u kiciyo. hataaban marka aad ka kacdo moobeelkaaga, qaladka ugu weyn dadku sameeyaan waa tan. moobeelku waa cadowga koowaad ee farxadda subaxdii. marka biyaha habeenkii aad sii diyaarsanay miiskay kuu saaran yihiin. markaa saa usoo kacdo biyahaasaa ka bilaabaysaa loqloqo ama cadayso, kadib biyaha cab. qodobka labaad waa inaad samayso waxa la dhaho stretch and move. stretch and move, dhaqdhaqaaq kooban. marka uma baahnid inaad orod weyn gasho, inaad labisato, inaad kaba buuda xirato si aad usoo rado. waxaad u baahan tahay keliya 5 daqiiqo oo jimicsi fudud ah. 5 daqiiqo ayaa kugu filan. marka aad jirkaaga dhaqaajiso xitaa adigoo sariirta saaran, markaad ducada akhriso alxamdulillahi alladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nushuur, markaad akhriso in sariirta adigoo saaran aad gacnaha iyo lugaha ka dhaqdhaqaajiso way kugu filan tahay. marka aad jirkaaga dhaqdhaqaajiso marka maskaxdu waxay soo daynaysaa faa'iidada laga leeyahay. marka dhaqdhaqaaqan wax la iska samaynayo maaha. maskaxdu waxay soo daynaysaa marka aad dhaqdhaqaaq yar samayso endorphin iyo dopamine. labadan maado waa kiimikooyinka dabiiciga ah ee farxadda mas-uulka ka ah. marka aad intaas samayso waxaad samaynaysaa haddana wax la dhaho deep breathing. neefta aad qaadanayso inaad caloosha ka soo qaado. macnaha dadka inta badan waxay ka neefsadaan xabadka, laakiin adiga caloosha inaad ka neefsato. caloosha inaad buurto oo neefta aad soo qaado kadibna afka kasii dayso. qaado neef dheer ayaa lagu yidhi, sanka ama afka kasii daa. tanina waxay keenaysaa marka faa'iidada laga leeyahay maxay tahay, oksijiin badan ayaa gaaraya unugyada maskaxdaada. waxayna taas meesha ka saaraysaa stresska iyo walwalka habeenkii oo dhan kuu ururaya. waxaan hadda fahnay waxyaabo badan. waxaan fahnay adkaarta in la akhriyo 5 4 3 2 1 in la dhaho, laga istaaga meesha, daaqada la furto, biyaha la soo dhaweysto, galaas biyaha la cabo. hadday qabow ay yihiin way kasii fiican tahay. stretch and move, in dhaqdhaqaaqa aad ku samayso joodarigaaga adigoo saaran, in caloosha aad ka soo neefsato. intaas markaan waxaan galaynaa wax la dhaho gratitude. gratitude maxay tahay? inta aadan sariirta ka degin ama marka aad quraacanayso laftigeeda waxaad ka fikirtaa nimcooyinka ilaahay ku siiyey, caafimaadka, soo kicitaanka. sababtoo ah dad badan oo adiga kula mid a ayaan maanta soo kicin oo sariirta ku dhintay. qaar adiga kula mid a ayaa xanuuna la soo kacay. marka caafimaadka iyo qoyskaaga iyo qaar badan oo adiga kula mid a ayaa laga yaabaa in ay fursaddan waalidkooda uusan nooleyn. qaar kula mid ayaa laga yaabaa inaysan caruur haysan. marka nimcada qayb aad haysato, qaybta kaa maqan intaad haysato xataa dadaan haysan. macnaha marka waxaad ka fikirtaa waxyaabaha positiveka ka fikir. marka aad maskaxdaada u tababarto inay aragto waxyaabo wanaagsan sida iftiinka qoraxda, iftiinka banaanka, in aad moobeelka ka fogaato, in aad quraan akhrisato, in aad biyo cabto, waxyaabo wanaagsan marka aad aragto waxaa si toos ah ay u xirmaya albaabka fikirka xun. tanina waxay ku siinaysaa kalsooni in aad ku wajahdo caqabadaha maalinta oo dhan inaad ku wajahdo. maanta laga bilaabo ha ka fakirin dhibaatooyinkii shalay.
markaas subaxdii ka kacdo dhibaatooyinkii shalay ha ka fikirin, laakiin waxaa ka fikirtaa guulaha aad shalay gaartay iyo guulaha aad maanta gaari doonto. gabagabadii waxaan ku siinayaa hubi in aad haysato liis kooban 3 shay oo kaliya oo aad rabto inaad maanta qabato. inta badan dhibaatada dadka haysato waxaa waaye qofku xataa markuu kasoo kacayo ma yaqaano waxa qaban doono. manaha maanta 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 aan qabanaya oo kaliya. haddii maanta tusaale wax kadiisa ay ku yimaadaan, qorshaha maanta ha ku darin, qorshaha beri ku dar. tusaale saaxiibkaa wuxuu ku yidhi ma raaci kartaa niyahow, adila niyahow maanta may beri nooga dhig. waxa laga yaabaa beri asagana inuusan ku soo wicinba. markaad ogtahay marka meesha aad u socoto, kicitaankaagu wuxuu noqonayaa mid macno leh. qofka aan qorshe lahayn waxaa la yidhahdaa wuxuu kamid yahay qorshaha dadka kale. haddii aadan adiga qorshe lahayn, qof kale qorshihiisa ayaa kamid noqonaysa, macnaha qof kale ayaaba qorshihiisa isaga kaa darsanaya. marka farxaddu ma ahan waxa kugu dhacaya ee waa waxa aad adiga abuurato. haddii aad raacdo 3dan shay ee waaweyn ee aan hore usoo sheegnay, sida iftiinka iyo biyaha, dhaqdhaqaaqa jirka, inaad ka fikirto waxyaaba positive ah, waxaad dareemi doontaa insha allah isbedel weyn muddo 1 toddobaad gudaheeda. waxaan rajaynayaa in muuqaalkan wax badan aad ka faa'iiday. like saar muuqaalka si saaxiibo badan u gaaro. haddii aad nagu cusub tahay, ha iloobin inaad subscribe saarto si saaxiibo badan noogu soo biiraan.